السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت دواد جيس ستوري تي في إن شاء الله دولاني قارسيو مانتا waxaan rabay inaan laga qaybsado asla eegno insha Allah su'aal maxaan ku oraahaydeenay la xiriirsan badiga ka dadka jawaabaha la siiyo ay sidii rajaynayeen ay u dhicweydo maxaan ku oraahaydeenay wax positive wax negative hadii la siiyo jawaabtu sidii ay guuldaro noqoto processku wuxuu doonaba ahaado waxyaabaha ka soo hadalno ku dhan migrationka ka temporaire ama permanent mid ku doonaba ahaado laakiin muhim kuma qancin donc liga waxa rabtaa inaad maxaan ku raadin su'aal weydiisid amba sidii amba maxaan ku aad ka filceliso tiraado waxaan kuma qancin aad su'aal baad ka leedahay wixii kuma qancin jawaabtii ku siiyeen kuma qancin liga inaad su'aashaada rabtaa waa federaal waxa ka hadlayno provincialku way ka duwan yihiin waa maxaan ku rabtaa tobanka provincial isis baa wala xidhiidh laakiin waa federaalka decisions waa weyn qaata donc federaalku weyn waxa ka hadlayno kokolno waxa dhacda maxaan ku raadinay waxa ka soo hadalnay ahayd اللهم صل على محمد waxaan ka soo hadalnay qaybtii kulku etudiiniyo kaayaasha deelayaasha ka ku dhaaf deeleego maxaa la sameeyaa deeleego u dhaafay yalla xiriiraysa yaa soo qoraysa sidee soo la xiriiraya taas waa isleegina maanta insha Allah su'aashaasi isku badiga way isweydiiyaan dadku waxyaabo badan xilliga ka wax siraan wixii raagtay qaar badnimo sidoo doon u sariftaa laakiin muhiimadu waxay tahay meesha intaad maxaan ku raadinay aad deductions ka waxaysan laakiin waa inaad meeshii la xiriiriyay décision قد décidera la raha surtout agent immigration waxa weeyaan dad waxaan ku xeer baa u leedahay in la hadashid oo weydiiso ash donc halkii maxaan ku kanal kana kula xiriiriis waa kanalkii waa kanalka maanta insha Allah amba xogta meesha kula xiriiriisin ma sha Allah ya tusdoona waa laba weeyaan xiliga labaduba way is completeeyaan laakiin muhim waxaan ku wadaarki doontiin midi condition buu leeyahay ku kala xiriiriisid haduu qofku metelin weeyaan haduu qaraan aad leedahay qaasatan macku refugeega halkan maada maxaan ku raadin Ingiriisi weydiista iyagana processku uu socdo amba uu raago badiga dadku waa isu antimide maxaan ku raadinay qaar badan ba antimide oo siraahon maxaan ku raadinay komti deciderkan uu sidoo doon yeeli karay amba su'aal weydiin karin adigoo soo maray qaarina hadad processka uu kaliya dhigatay aad bilowday xeer baad u leedahay meel kanaalada jira official loo maro xeerkaagi baad dabaqaysaa laakiin way adag tahay kolkol baaskii jawaabtani ku siiyeen waa jawaab ay ka soo fikireen iyaguna koodad bay leedahay article ay leedahay reglement bay leedahay waayaal xiliga luwaaga bay iyaguna waxaan ku refereenahay oo ku diidiyaan bal hore aan u galnay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim tan maanta waa ka pratique sawirkiisiin donc xiliga waa soumettre plan-kii amba rétroaction maxaa ku gaar celintii aad ku celinaysay falcelintii aad ku celinaysay wixii ay jawaabtii ay ku siiyeen qolada IRCC-ga amba ministère noqon karaya waa kaaga refugeega amba kol intervenir ministère-ku x raison maxaan ku raadin qofka ayuu intervenir ba jirta donc kolka oo kale tu peux quand même maxaan ku raadin adiguna plan ba dhigi karaysaa oo révision kol waxa la yiraahdo maxaan ku administrative ba la yiraahdo dossier-ga laga révision ku waxayna balkii waxa hornaysa qodobka aan mu ogoli qodobka kale mu ogoli qodobka kale mu ogoli laakiin iska inta aad qorin si fiican way waxyaabaha ornis baskiyaguna way garanayaan qaraarka qaateen iyaga meesha u socdaan way garanayaan meesha u socoto inaad garitid waxa ugu muhiimsan caadi ahaan kolka dossier-ga dootidba amba permanent amba résident amba temporaire san uga soo hadalnay labada parti mid ku doona ahaado lix boo kala kacayaan baa naraheed ka dootidba programka dootidba haddaad ku application ku soo dirtid caadi ahaan had iyo jeer waxa lagu siinay wax la yiraahdo muqaddimo IRCC-gu waa maxaa ku waa qolada ministère kan jeeriya immigration weyn surtout قلنا جيري سوين أجنياشة سي ويجا responsable كا كواس numéro de demande بكسينا كل كاتسو سود دبتي وحي réception لهلا كل كاب سيزي وفريان وحا محاك والدوسية كل الفرا numéro de demande بالغو صدر كل بروسيس كمال بيرجعنا محاك ورايدين واحد لا يراهو واحد كسينا identificateur محاك ورا unique des clients أقول لا يصير قف كستولي يعني ولا هي قف كست محاك ورا immigration وضلنا هي يصير وضرس عنها tout le temps هذه جر ونيمو قاعد هانيسا واحد officiel هذول لها unique maxaa ku raay confirmation de résidence permanente kaaga ku jira maxaa ku raay RP-ga résidence permanente oo PR kaaga de permanent residence kaaga ku jira mid ka doonaysid ku jira kaawad yeelanaysa kolka amba lagu soo jawaabay processka dhex gashid weeyaa inta warsi nimo demande bogsinaya IRCC waa muhiim labada waa yeelanaysa inta laga baahay ka dahaysatid wadalki doonta shaqooyash lagu buuxinay waa muhiim weeyaa inkastoo magacaaga iyo magacaaga waxaad rabtid inuu lagu weydiin doono insha Allah hore u socono waa saad jeer saan hore inagu sheegay sourciga meesha laga aan ka soo saaray wax walba waan siiyaa xiliga
suqsi laba suqs baan isticmaalaynaa labada suqsba hoosta nii dhigi doonaa sidii caadada ahayd waad ka eegaysiin oo waad ku klikeenaysiin haddaad doonaysiin labada formula waa arkaysiin haddii iminka ay kaagaga tahay amba jawaab ku qancin aad heshay amba maxaa ku raayay processisku amba waqtigii aad rajaynaysay amba waqtigii ku qornaa ay dhaaftay xilligaa waa inaad weydiisid war walaalahay waa kan dee wixii waqtigaabaa ku qornaa meesha anigu waqtigaabaan dhigay jawaabna ma hayo sidee ku dhacday 10 cishay qaadataa way kusoo jawaabeen laakiin waa qasab weyn wax waa xeer baad u leedahay dad xeerkaaga waa inaad adiguna ilaashtiin xilligaa waa kan ka ugu horeeya ku bilaabaynaa soumettre votre rétroaction waa formulaire ugu horeeyay saad u arkaysiinba formulaire kan maxaan ku uraahideynay waa hore kuu sheegay formulaire waxaad isticmaali karaysaa waa raisonyaashan bay ka idhahay kolkaad doonaysa inaad ogaatid su-aal ku saabsan halkuu doosiga ku socdo doosiyagii immigration qaar badan oo waxaan arkay su-aalo badan weydiiyey laakiin su-aasha qof uguma jawaabi kara waa adkaanaysaa qof kasta haddaad ka tiraadid maxaan ku uraahideynay noloshii baa la daba caymadaya way iska adag tahay ma qof kasta haddaan idhahdo halkaama fadhiisanaya u jawaabaya badiga dadkuna sabir badan male inaan badiga ku daawado aan qaarkood u jawaabayn bay moodaan laakiin muhim maxaa ku uraahideyn waqti ma hayo aan ugu soo jawaabay xilligaa waxaan sameeyaa su-aalaha isku soo noqnoqda kol qulaan video ma ka waxeeya insha allah taasna dee waa inaad waa muhim waan qofku inuu videoga soo eego haddii kale way adkaanaysaa had jeer qof kaste maxaa kaa uguma waxayn karaya dad baa jira oo shaqadoodu tahay consultant immigration waxeeya oo silsilaha domaine iyo avocat baa jira waxa uu waxeeyo qofka suudiyi la waxayn karaya qofkii raba wax personalisé insha allah cala labiyantu waan isla eegaynaa laakiin iminka ahaan si way igu adagtaani maxaan ku raadin waqti uma wahayo xilligaa qaarka aan karayn waan ugu soo jawaabaa intaa waa iska samri karaysin walaalaayo laakiin muhim maanta waxa weeyaan su-aashaadu haddaad rabtid taag halkuu socdo ood isweydiinaysid halkuu socdo maanta halkuu joogaa demandkii immigration soo diray maalinta heblaayo aan soo diray maanta halkay joogtaa waa kow haddii aad rabtid accès d'information maxaan ku raahideenay wax protection et renseignement personnel wax haddaad rabtid in maxaan ku raahideenay aad inaad accès inaad protégisid ama ilaashitid information confidentielle oo kaleeto personnel taasna weydiinaysaa coordonnées et emplacement d'un médecin désigné haddii maxaan ku raahideen aad rabtid su-aal qof waxaa jirta caafimaadka kala marayo médecin désigné médecin ayagu rabaan yaa badiga laga maraa ka haddaa rabtina ogaatidna kolkaana su-aashana lagu ogol yahay haddii re-examen aniga saa nii sheegi kaagii re-examaga saad u arkaysiinba re-examen kaagana saad u arkaysiin waa re-examen donc kaagan wuxuu nii sheegayaa waa qofka kaaga maxaan ku uraahideen allahuma salli calaa maxamed waa kolka qofku uu maxaan ku uraahidenay uu revision waa wixii ay ku soo jawaabeen kasoo qaad arday baa tahay kuma qancin jawaabtoodii waxaa tahay maxaan ku uraahideen visiteur kuma qancin jawaabtoodii waxaa tahay maxaan ku uraahideen qof regroupement familial baa weydiisatay amba reerkagaa sugaysay walaalaha qof adka almuhim waxbaad waxaysay ku immigration ku saabsan kuma qancin laakiin jawaabtii waxaa tiri jawaabtan ima qancin maxaan ku uraahideen ay arjoyaashu iga soo jawaabeen xilliga waad ku falcelinaysaa adigoo haya reebiyaashii iyo maxaan ku waxyaabaha dee raggan aad ku contestaynaysa ta kalena waa kuwan kaloo rétroaction à propos d'un centre de réception qoladan CRDV waa badiga waa centrada maxaan ku uraahideenay traité demande de visa oo Kenya jirta Nairobi centradan kolba nii micnayn doonaa badiga kuwa Djibouti waa laba Addis iyo Kaambe kala tagaan anaga laakiin Djibouti cadaan jeeraya waa Kenya jeeray laakiin faraha waad ka dhigi karaysaa ka Addis cadaan waad ka dhigi karaysaa laakiin badiga immigrationga maxaan ku uraahideenay traitement partie par exemple permanent kuwa la oranayo waa waxa jeeray waa ka Nairobi baa jeeray CRDV-yaasha oo kale haddaad maxaan ku uraahideen centerka oo kale aduu ku cajibin أنا بعد عاد والله لو بحد دوسيال بعد جري عن جاي ريتراكسيون عن ريتراكسيون بدل ما يكون فيه ويقنعين حلقة الصوت كوالد دراسة لو راح لي مقنعين والله يودلي سو جواب على هنا هدي رانسينمون جنرو هذا سؤال خبطت إيميغراسيون أو سؤال دولسين ويديسيت أما بروجرام وحضار بسابسين ويدين كذا à propos d'un consultant d'immigration قف كسوقات المهم consultant d'immigration ما ديرا كل شقية ضد بدن الأغناكية ديرا وفهم كلام بس دور جاب كلمة أغناء أنا تلمون كنا محاك ورايدين وحول بمحاك ورايدين وعبسي والجلي وفهم كريا وحلا عبسون كل بحي أقوانا دول هين أنبا محاك ورايد جرني ووحي هذا محاك ورايد دباتي ده هاي حلقة وحول المهرب عن الشيء إسكاء وحول بوسيكوزي وفكار أكتا هذو جرني سو مركز سوق الصعود وحول محاك ورايدين وين أوجاتين هالكوكي مدي
waxyaaba ugu muhiimsan weeyaan securizationka maxaan ku raadinay kolkaad wax walba information ka soo eegaysidba waa inay egtaa ka timid waxan ma wax runaa mise wax beena waa taas waa muhiim waa xilligaa consultant immigration haddaad qaadatay oo lacag kaa cunay dad baa yiri qaar badan baa soo diray consultanyaal badan baa wax nagu wixiyey mid kala sida nagu wixiyey waxyaaba badan baa dad badan ii sheegeen laakiin muhiim waxaan ii sheegayaa maanta haddii waxyaabaha oo kale jiraan oo waxa ay nagu dhacday kaayaashaas waad u dirin karaysiin halkan qofkaa hebel yaa sidaasay igu wixiyey laakiin maalin kale aan tusi doonaa say consultanyaasha amba avocayaasha loo verifiyo inay ku jiraan orderada baaske hadduu qofka order ku jirin inaad la xidhiidhid maaha amba uu ku matela maaha xilligaa waad iska ilaaliya haddaad adigu keligaa waxaysanaysidna akhris badan bay kaaga baahan tahay videoyaal badan baad eeg anigu waxa ku dhan ima wada siin karayo dadku waa inay fahmaan waxa ku dhan anigu halkan kuma wada haddaan aan bilaabo waxay qaadanaysaa wad yaabaysiin waxay noqonaysaa dee comme série oo kale noqonaysaa muhiimaduna taas ma wax yar oo kooban umaan soo waxayn intii maxaan ku hore inaan soo sheego boqolkiiba 30 20 kokol konton haddaan u badato weeyaan programada ku xidhnaa inta kale waa in akhristaadii ba ku daraysaa laakiin jidkii waad haysataa meeshii la marayay waad garanaysaa wadada haddii lagu gurido dib maxaan ku raadinay maraysaa isoo sheeg ridaarta haddii lagu gurido waa garanaysaa dalka u socotid haddii toolo kale meel wax kaga wacan laakiin bas waa wadadii baan ku tusayaa sidii loo marayay waxyaabii information u baahneed oo kulan yaan qaar badan ku partageeyaa dawladda ahaato waxyaabo badan laga waa waxyaabo maxaan ku raadinay suuqa mid kasta dad yigtiin wax meel maxaan ku rafiiga oo ka soo saaray mid jirto waa wax wada suuqa waxaan la qaybsado wax laga fiirsaday aan aad iyo aad uga soo fiirsado waxaan bas ku video baashada wax kale ku marido wax kale kuma partageeyo baashada sidoo aragteenba maxaan ku raadinay haddaan u soo laamo retroactiongaas immigrationga maxaan consultant immigrationgaasi haddaad haysatid uu nidaceen halka mad ku waxaynaysaa iminka su-aaluhu waa kuwan compliment haddaad maxaan ku raadinay aad ku cajibiyey servicekii IRCC-ga uma malay laakiin badiga dad badan uma malay inaad ugu qoraysid immigrationga waxaan baa cajibiyey waqti dadku ma hayaan waxyaabaha dadku waa plan labadaas way ka soo boodaan wax commentaire iyo waxaana waqti uma hayno anagu badii dad waarun dad waxaana iska dhaliil badan wax kasta waan dhaliilnaa wax ugu wanaagsan adduunka wax uma ka sheegnaa laakiin ma qorno badiga moogtiin xilligaa wax caadadeena ma commentaire ku qortid waqti ma gelinayso waxaan baa dhacay laakiin afkaad ka hadlay laakiin halkan ma qori karaysid xilligaa muhiimada laakiin halkan waa muhiim plant waxaan socono weeyaan road continue baa oran maxaa dad plant ku dhigaya kow waxaad ku dhigay deleegi iyo waqtigii uu dhaafay maxaa ku raadeen uu raagay taas deleegi baa oran service agentga ya waxyaabo iska fahmoodeen frais de remboursement ya maxaa ku raadeen aba dossier ba waxaysay laba jeer baa lacagti kala bixisan baa lacagtiiba xumaatay amba waxyaabo oo ka fray ku saabsan bay dhibaato ka dhacday oo qori uti online baalkii maxaa ku wax ku dhamaatay online waa boqolkiiba way ku wadaan bas dossier baa jira regroupement familialka programme atlantique oo kale programme ya jiri migration immigrant papier oo ay waxayaan même réfugiés laakiin imika express ko kale way wixiyeen express kuma baahnidba wixii oo platformga isticmaalaysid ay haystaan waa uti online weeyaan visa visiteur uma baanid hore uma wixii étudiant uma baanid superviseur uma baanid wixii résident temporaire oo ku dhan waxay ka wada dhigeen maxaan ku raahideenay qaybta waxay ka dhigeen online waxa hore bas partie permanent ya bas qayb qura travailleur qualifié oo waxaan uma boqolkiiba way aad doorta 10% ay ka dhigeen inta kale way wadaan ma marin uti online waxa ku dhan online ba bientôt laga dhigi doonaa platform online laga wada saaray ayaa laga wada dhigi doonaa laakiin kama dhigno waxaad qoraysid maxaa ku raahideen been baa ka sheegaysa kama dhigin iska ilaaliya wax kasto online maanta waxaad gacanta ku qoraysi waxaad clavier ku qoraysi waa isku engagement c'est wax isla leeyihiin juridiquement hadii la eego maxaa ku raahideen sinon les règlements et les lois maxaa ku immigration hadii la eego waxaa ku raahideen waa le même poids waa wax numérique haduu yahay iyo wixii haduu yahay papier waa isku loo hadda laakiin wax been ka sheegtid amba sidii la rabay ay u qorin oo ka dambe ay wixii arkaan ay kala baxdo mas'uuliyadeeda adiga qaaday aniga hore aan galay deleega dad ka cawda badiga aad iyo aad soo weydiiyey deleega way dhaaftay daadkii baad ku qori maanta waxaan joognaa bishii maxaa ku raadinay waxaan joognaa 8 juin baan joognaa hay halka waan ku qoraysaa waxa qoraysaa anigoo hebel wixii de maxaa ku raadinay laakiin formalité iska ilaaliya maxaa ku raadinay waa inaad u bonjour waxyaabaha caynka oo kala ku bilaaba monsieur madame uma bahnina kutiyaadi laakiin bonjour virgule ba ornaysaa maxaa ku raahideenay par la présente waxay rodde formel oo waxaya uma si aan tusaya maxaa ku
maxaan ku raahideenay cheminement laakiin wax formel ah qoraysa halkan kama dhigna textoogi la isku diriyay xaafadaha iyo maxaan ku ciyaarka isku diriyay badigana facebooka mooyaashiina eega bas waxaana qoraysiin wax waa inuu ahaado maxaan ku raahideenay vraiment phrasiation bien structuré syntaxique wuxuu ku dhan parce que meel baa ka dacwoonaysa donc soit quand même waxaana qoraysa wax inuu ahaado ka dilaaliyo haddii kaleete de laba arkinay baa aday rabaan لكن تاسنا صار فورميلا vraiment qofku tago uu akhrisan karayo laakiin waxyaabahan shaadkan Facebook la isku dhigayo messageation TEL tan iyo waxan aragtida ku wada socda no ça marche pas sida ma aha waa wax formela ka fiirsatay structuré bien écrit vraiment waa des langues waxa ku qoraysa maxaan ku raahayeen ma jargon familier waa administratif liga wax administratif weyn qortay halkan waa coordonnées vos coordonnées waa adiga magacaagi magacay aabaha maxaan ku raahayeen halkan daadkii daad naissance kaagi UC-gaas ni sheegay demood ku arka adakii dossier kale uu leeyahay adresse kaagi consentement oui ba oran boom waa dirtaba طبعا عشان تسوي halkan maxaan ku raahayeen joli ba oran doonta maxaan ku maanta soo dirtid waxa ku soo diri doonaan 10 cisho ka qaadan doonta 10 cisho kadib jawaabtaadii waa heli doonta maximum bay qaadataa kolkaaba waxay ku soo dirayaan maxaan ku raahayeen emailkaaga waarki doonta waxay ku soo diri doonaan message yaro courriel yaro waxa jira maxaan ku automatique jira oo maxaan ku robot électronique jira normalement kolkaaba ka dirtid waa message automatique ku soo dirayaan one shot donc waad garanaysaa in waxa ay tagay haddii dib u laamano taas waa maxaan ku raahayeen waa kaagi maxaan ku raahayeen hadii frère oo kale taaday noqoto frère ku ajibin frère de traitement gaad oran okay continuer ila sidii oo kale waa isla caligun waxba isma bedelayaan wixii baa qoray frère sujet wuxuu ku dhan mais maximum 1024 mots ma dépasser ici parce que waa ana waxaan oran lahaa badiga inta halka ku qorin waqt ku qora inta waqt ku soo qoritid waxa ku dhan adigu ku leeyahay soo qaadano copy halkan comme ça structure qurux badan u yeelan mooyaashna dépasser waxay soo résumé 1024 caractères oo iska badan tahay weeyaan waxaaga waad ku macnayn karaysaa intaas xiliga rétroaction et plainte ka yaalkan baad dhigi way ku soo jawaabeen markaas dad dib la amno kale histoire traitement go aagnay frais de remboursement go aagnay ou ti olin kana adu problème ka yeeshay généralement problème waa sida u aragtida laakiin ugu muhiimsan waa kan iyo kan labadaas bay dadku badiga ay isticmaali doonaan sawarka service ka dadku ajibinadii tan waa oran karaysaa waa maxay soo qaaday traitement gaaba ya problème ka igu wixii plainte waxaan dhigay bahalkaas waxa ma helin procédure traitement ga expérience client ga service à la clientèle comme maxaan ku raadeen halka suivi baa isku wixaya waxa weeyaan service à la clientèle jugement buu leeyahay maxaan ku raadeen surtout dadka ku ka tagtiin ambassade kama CRDVH ku ka tagtiin caadahan ka ki Addis Ababa amba ka Nairobi labadaba waxa soo maraysiin qolo maxaa ku u dhaxaysa oo xariilayaal oo kale tay faras u dhigis kuwaas normalement waxa ku qori karaysiin commentaire ma ku waxaan karaysiin si jamais adu amba problème nigu dhacay amba problème kala yeelateen amba uu niacibin amba wax raadon hadii kalena de waqti u haysid badeeyo sheekadaadii amba ku dhacday kuma dhicin laga muhiim waa in labadaba sugtid sida hore soo sheegnay mitaan diziniyay adu problème yeesho sagna halkan baad u qoraysaa Nicolas on man Djibouti jira ma kuwa kale way jiraan si aan problème adu ma jiro halkan wixii wax walba halkan waad qori karaysaa à chaque fois waad ku diri karaysaa kan waa service qui ka doonta hada disposition législative que le problème que la politique en immigration hada problème leedahay misa mitonere waxyaabaha inuu malayna dhixgelaysiin la IPR la RIPR donc waxyaabaha doctrinada hadii wixii tout ce qui disposition les codes wasa uma malay waxyaabaha dhixgelaysiin laakiin hadii par curiosité waxaas dad curieux jira badiga waxyaabahan loo bixiyay oo xiliga ayagoo plantiyaasha dhiga laakiin nagu waa maxaan ku raadeen traitement-ga iyo waxyaabaha dadku isticmaalaan waxaan si dhexgalaa mid kale jira sagna formulaire kaleete sagna muhiima kana oo sagna feedback amba plan lagu waxaan karayo laakiin condition sagna leeyahay sad u isticmaashin kan waxa weeyaan soit demo baad dhigatay oo horeba profil u leedahay amba ahado permanent-ga amba ka kala ahado temporaire-ka votre demande maxaan ku raahayeen waqtigii uu dhaafay lagu traiteynay ka soo qaad étudiant hore oo soo eegnay traitement-giisa delega 8 toddobaad bay ahayd 8 toddobaad uu dhaafay xiliga permis di 8 toddobaad uu dhaafay walaalahay halkii sheekadii joogta degdeg waa qoraysaa oo waxaan de waxa ma fahmay de sheekada halkii joogta jawaab waa inaad DCC naan waxan baad ku qorteen iyo wixii de sidana xiliga aba covid ah yaraan amba waxay doonaa ku marmasiyo iyaga u taala xiliga taas su'aashaas xiliga kale vous souhaitez signaler des changements importants xiliga ilma yar baa ku dhashay maxaa ku wad guursatay maxaa ku raahayeen
qof baad adoption baad waxaysatay shaqadii baa iska bedeshay wuxuu doonay délai meeshuu doona hadduu socdo formulaire-kan baa qoraysaa 5 jours ouvrable baa ya maxaan ku rahaydeen iyo mise jour lagu soo waxayn doonaa haddii kalena waa kolka maxaan ku rahaydeen qof représentant baa ku metelayay caadi ahaan waa 54 76 formulaire-kan waa représentant consultant immigration kale amba avocat qaareen ku metelayo dossier-gaaga soo ku metelayo wuxuu ku buuxiyay uu ku diray oo dossier-gaaga la socdo haddii aad bedeshid isaga xiliga dib baad kaas loo isticmaalaysaa haddii traitement wax urgent ay ku soo baxday ka soo qaad dad baa jira badii qof kale yimaada raison permanent oo qaataa rejuut qaar baa laama parce que amba shaq uu laamaya amba dan kale amba dhibaato kale ku dhacday amba wuxuu doonaa qof oo laamo muhiim qof uu laamay donc wax urgent uu rabaa donc xiliga formulaire-kan uu ka soo qoray wuxuu ku dhan voyage-kiisa préviage wuxuu ku dhan halkan baad ku daraysaa haddii kalena waxaad doonaysa waxaad u signaalinaysa wax problème technique baa dhacay iminka par exemple baalkii baa plantéeyey amba maxaa ku raahideen UC-gaagiiba iyo problème ku dhacay waxyaabo en tout cas problème technique difficulté technique baa loo leedahay maxaa ku raah ku saabsan permis de travail-gaagii amba permis d'étude-kii fiche visiteur-kii maxaa ku raahideen ay badii ka fiche visiteur-kuna waa c'est un document la siiyo qofka kolka yimaado parce que dadku visa-ga lagu siinayo kama haddii 10 sano lagu siiyo kama dhigno 10 sanaad joogi karaysa Canada waa waqti muddaa jirta kooban 6 bilood ba visiteur kuma dhaafaan iliga waa waxay ku yaala weeyaan laakiin waxa ka dhigan tahay intaas waa soo laalaami karaysa laakiin kama dhigan 10 sano lagu dhajiyo 10 sano joogaysa iliga fish visitor wax la yiraahdo bixiyaan oo signa soo kooba qofka intuu joogayo uu visiteynayo wadanka intuu maxaan ku raadinay joogi super visa-ga ma badan dadka ma badiga la siiyaa muhim xiliga waxyaabaha kala da signaalinaysid halkan wuxuu ku dhamaad ku qoraysaa nimowgaad waxay karaysaa halkan hadda si socono demoodkii waa hadii wuxuu ahaa eegaysaa changement et type de demande présenté muxuu ahaa résident temporaire baan wixii en ligne baan wixii wuxuu ahaa visiteur baan wixii wuxuu ahaa permis d'étude buu ahaa wuxuu ahaa permis de travail wuxuu ahaa fiche de visiteur hay dhibaatada kugu dhacday halkan baa ku qoraysaa maxaa anglais en français baa ku qoray kan ku badiyay 1500 caractères uu ka sii badiyay sidaan ii sheegay toujours formule politesse maxaan ku raadinay wax structuré soutenu formule administrative had iyo jeer waa vraiment waa muhiim weeyaan waxyaabaha lagu communiquer weeyaan donc inaguna baxrays gelinina xiliga waxay noqotay demandaarka halka magacaagii wuxuu ku dhamaa ku qoraysaa hebel baa ku qori halkan maxaan ku raahideenay isoo sheega ka dad naissance-kaagii baa ku qori da'dii halkan waxaa ku qori wadankii waxyaabihii UC-gaagii baa ku qori numéro demande-kaagii waxyaabo wuxuu ku dhamaa qori query étoile keer baa obligatoire kuwa kala dad doonaysa ma bixinaysid المهم قفكي wax weydiistay ka wada demandeur-kii récurrent-gii baa hadana ku qori relation avec les demandeurs hadii imika soo qaad adiga dad macaha ku raahideenay amba waalidka u haysay sida oo kale haduu noqdo demandeur-kii oo qof kii metelayo kale tan iyo noqonay relation avec les demandeurs do maxaa ku raadi islaantaada noqon karaysa donc waa récurrent et puis les demandeurs relation avec les demandeurs kii qofka weydiinay ee baalku waxaynay qisas les demandeurs qofku wax waxaynay anigu hadaan abahay amba weeday amba qof kaleete aan u qorayo wixii ku dhan aan haysto halkan baad ku qoraysaa identifier waxa ku dhan qofka récurrent-ga maxaa relation uu leeyahay maxaa ku raahideenay isoo sheeg dossier-galana waa qofkan en même temps asagna wixii si ku dhan maxaa ku relation demandeur kale leeyahay la relation avec les demandeurs waa nom de famille baa ku qori magacii asagna UC consultant ga duu ku metelay consultant ku metelay halkan baa ku qori laakiin inta kale muhiima waxa muhiima maxaa ku ruuxi étoile asana obligatoire les cas de je consens waxa waa règlement waxa waa clause d'exonération de responsabilité les gars maxaa ku raahideenay waa waxa inay ku qoran caadi ahaan à chaque fois waa bis waa wax confidentialité-ga inay waxyaabo ilaalinayaan maxaa ku raakaagan dossier-ga waa politique-na u maalmay faut que tu consens parce que dad consentement-ga si weedo ma ogoli tirahdid ça veut dire que baad ma si soconaysid obligatoirement si bloqué c'est juste ça donc suivant bawran dota waxa ku dhawaadiri donc ka dirtina hadii tolo ku soo jawaabeen caadi ahaan en temps normal kokol waxay qaadataa 5 jours ouvrables hadii tan tahay wax signalement urgent oo lu signalinayo hadii kalena au maximum 10 jours bay rahaan en général kolka waxa heli doontaa Allahumma salli ala Muhammad waxa heli doontaa jawaab heli doontaa jawaabtaas amba tu qalcanaysa noqon amba tudde hore u sii soconayso wadana tu kala tu sicilin saas badilaa adigu waxaad ku qancaysid aad helaysid laakiin halkan baa laga waxaystaa tan intaas condition hadii leedahay ka bad qaadan
haddii kalena kan baad qaadan oo maxaan ku uraahayeen deleded traitemooga waxa ku dhaqay traction labada baa la isticmaalaa insha Allah dulahani gaasku ka faa'iideysta insha Allah waxaan ku raxay badan baan rajeynayaa saaroni ni warami nagu sheegay adag tahay qof inaan jawaabto qof walba inaan xaqaagiisa u jawaabo sidan bay tahay baski waa shiminimo aad buu iyo badan laakiin su'aalaha badiga waan isku geeyaa intii wixii muhiima ashak waa video ma kasoo waxay xiliga inuu insha Allah waxaan rajeynaynaa maxaan ku raahdeynay videoyaasha wixii aad arkaysiin aad rabtiin halka aad ka helaysiin anu iska waan soo diray baski adag tahay hadii jeedna soo celiyo بس وقتنا وما هيو إن كاكا وجوابه وأردت تايد إنتانا إن شاء الله دولاني جالسيو إيدو غاتا محني رجيني خير بدن محن قراه ديني مالي ونكسن عم بهبين ونكسن وقتي نيت هاي ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته